cashirkan waxaan ku baranaynaa factoring a difference of squares. waxaan ku baranaynaa sida loo factor gareeyo difference of squares. marka ugu horeysa difference of squares waxay u eg tahay noocan oo kale a square minus b square. marka labada lambar oo ay u dhaxayso calaamad ka jar ahba labadaas waa laba lambar oo square ah. tusaale ahaan oo kale tusaalahan x square iyo 9 iyo 9 waa laba lambar oo ah square ah sababtoo ah hadda x square waxay la macno tahay oo kale x lagu dhuftay x. 9 waxay la macno tahay 9 waxay la macno tahay 9 waxay la macno tahay 3 lagu dhuftay 3. marka isku dhufo x ku dhufo x waa x square waa x square. 3 ku dhufo 3 lagu dhuftay 3 waa 9. square waxaa la yiraahdaa laba lambar oo isku mid ah markii la isku dhufto noqda. hata tusaale ahaan oo kale 4 ku dhufo 4 waa 16 waa square. 5 ku dhufo 5 waa 25 marka 25 waa square 16 waa square. maxaa la jiray oo kale 9 ku dhufo 9 waa meeqo 9 lagu dhufto 9 82 baan u maleynaya calculatorkayga mee okay la soo bax 9 ku dhufo 9 82 waa la isku hubiyaa 8 ku dhufto 8 waa 16 marka waa faanta u maleynaya square waxa la dhaho square waxa la yiraahdaa laba lambar oo isku mid ah marka la isku dhufto jawaabtooda ayaa square la yiraahdaa. hata 9 marka lagu dhufto 9 oo kale waa 82 marka 82 waa square of lambar 9. 16 waa square of lambar maxaa la jiray 4. 25 waa square of lambar 5 marka waa fahantay waxa square la yiraahdo waana waa hore ina baratay haddii aadan aqoonin waqtigan adigoo qaadanaya algebra 2. marka hadda sidaan u factor gareyno marka ugu horeysa waxaan subinaynaa waxaan raacaynaa formuladan waxayna leedahay sound bayna leedahay. hadda marka formuladan waxayna leedahay a marka lagu dhufto a waa a square ayuu noqonayaa b marka lagu dhuftana b waa b square ayuu noqonayaa. marka hadda halkan waxaan ku haysanaa x square ayaan ku haysanaa marka waxaan dhiganaynaa x ayaan dhiganaynaa haddana lagu daray x lagu daray formuladan baraacayna x lagu daray waa maxay square-ka lambar 9 lama lambar marka la isku dhufto 9 noqdo waa maxay waa 3. haddana formuladan anaga raacayna x baan dhiganaynaa laga jaray 3 marka waa sidaas ayaan u factor gareynay. hadda waan humin karnaa hadaa rabtid marka x square laga jaray 9 factoring formkeeda waxa weeye x plus 3 x plus x minus 3 weeye. waan humin karnaa x ku dhufo x waa x square x waxaad ku dhufataa negative 3 waa negative 3x weeye. 3 waxaad ku dhufataa x waa positive 3x. 3 waxaad ku dhufataa negative 3 waa negative 9. marka hata like termska ayaan collect gareynaynaa. labada like term waa maxay laba lambar oo laba xaraf isku mid leh. 3 iyo 3 waxay leeyihiin laba xaraf oo isku mid ah xarafkooduna waa x waxay kaloo leeyihiin exponent isku mid ah labadooda xarafkooduna waa exponentgooduna waa lambar 1. marka waanu collect gareynaynaa 3 negative 3 waxaad ku dartaa 3 negative 3 lagu daray 3 waa eber. marka halkan waxaa nagu soo haray negative 3 lagu daray 3 waa eber marka 9 baa inta nagu soo hartay. marka waan saxanahay waana check gareynay. tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa tusaale kale. tusaalahan wuxuu leeyahay x square laga jaray 25x. marka anaga formuladan raacayna marka ugu horeysa x baan dhiganaynaa haddana waxaan dhiganaynaa ku dar haddana x baan dhiganaynaa haddana x baan dhiganaynaa waxaan ka jar baan dhiganaynaa haddana x waxaan dhiganaynaa parenthesis. marka waxaa la subiyaa negative 25 waxaan raadinaynaa labada lambar oo 25 noqda. laba lambar oo marka la isku dhufto laba lambar oo isku mid ah oo marka la isku dhufto noqda 25. tusaale ahaan 25 waa 5 lagu dhuftay 5 ku dhufo waa 25. marka halkan waxaan ku qoraynaynaa lambar 5 baan ku qoraynaynaa intana 5. marka
waka waan soo helnay labada number marka waana factor gareynay x square laga jaray 25 factoring formkeedu wuxuu noqday x plus 5 x minus 5 ayuu noqday tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan x square laga jaray 1 over 16 marka ugu horeysa waxaan dhiganaynaa x haddana lagu daray parenthesis haddana x laga jaray parenthesis marka waxaan soo raadinaynaa labada number oo labada number square-kooda hal waa maxay square-kiisa hal square hal waa maxay hal lagu dhuftay waa isla halkii 16 waa maxay number 16 number 16 maxay macna tahay waa maxay laba number oo marka la isku dhufto noqda 16 waa maxay laba number oo kale marka la isku dhufto hal noqda laba number oo marka la isku dhufto hal noqda waa number hal ku dhufo waa isla halkii waa maxay laba number oo marka la isku dhufto noqda 16 laba number oo isku mid ah marka la isku dhufto 16 noqda waa 4 ku dhufo 4 waa 16 marka waxaan subinaynaa halkan waxaan ku qoranaynaa hal inta waxaan ku qoranaynaa number 4 kanna halkan waxaan ku qoranaynaa qaybta kore hal hoosna waxaan ku qoranaynaa 4 ayaan ku qoranaynaa marka hadda waan factor gareynay wuxuu noqday x plus 1 over 4 iyo x minus 1 over 4 ayuu noqday marka tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan x square laga jaray 36 over 64 marka ugu horeysa anagu raacayno formuladeeni noocan ahayd waxaan dhiganaynaa x ayaan dhiganaynaa haddana waxaan dhiganaynaa ku dar haddana parenthesis haddana waxaan dhiganaynaa x baan dhiganaynaa waxaan dhiganaynaa ka jar haddana parenthesis marka qaybtan banaan iyo kano banaan waxaan raadinaynaa lamparadan ayaan raadinaynaa square-kooda waa maxay laba lambar oo isku mid ah oo marka la isku dhufto noqda 36 waa maxay laba lambar oo isku mid ah oo marka la isku dhufto noqda 36 waa lambar 6 way lambarka 6 lagu dhuftay 6 way 6 ku dhufo 6 lagu dhuftay 6 waa 36 waa maxay laba lambar oo marka la isku dhufto waa maxay laba lambar oo isku mid ah oo marka la isku dhufto noqda 64 waa maxay labadaas waa maxay laba lambar oo marka laba lambar oo isku mid ah oo marka la isku dhufto noqda 64 labada lambar waa lambar maxaa la dhihi jiray 8 way 8 ha 8 ku dhufo 8 lagu dhuftay 8 waa meeqo waa 64 calculatorkeygii mee aan ku baroobeeyaba 8 lagu dhuftay 8 waa 64 6 lagu dhuftay 6 waa 36 waa saxsan tahay marka hadda waxaan dhiganaynaa lambar 6 baan dhiganaynaa tan waxay la macno tahay ogow 6 square waa sida 8 square-na waa sida 8 square waxay la macno tahay 6 ku dhufo iskanta oo taqaan waxaas okay lambarka kore waa 6 lambarka hoosena waa 8 marka waa kanna waxa weey lambarkiisa kore waa 6 kanna waa 8 okay marka hadda waad factor gareysa wuxuu noqday x plus 6 over 8 haddana x minus 6 over 8 ayuu noqday tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa mid kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan wuxuu leeyahay x oo la exponent 4 laga jaray 16 marka ugu horeysa anagu raacayna formuladeeni noocan oo kale ahayd waxaan subinaynaa x square baan dhiganaynaa x square sababtoo ah x oo la exponent 4 waxay la macno tahay x square lagu dhuftay x square ayaa la macno tahay taawayna ogaatid marka laba xaraf marka la isku dhufanayo exponentigooda ayaa la isku daraa kanoo laba leh ku dar laba ku dar waa 4 okay kan wuxuu ahaa qaybtan waxay ahayd plus qaybta kalena waxay ahayd x square bay ahayd haddana qaybtiis kale waxay ahayd minus bay ahayd marka 16 waa maxay laba lambar oo isku mid ah marka la isku dhufto noqda 16 waa maxay laba lambar oo isku mid ah marka la isku dhufto 16 noqda labada lambar waa lambar 4 16 wuxuu la macno yahay 16
wuxuu la micno yahay 4 lagu dhuftay 4 ayuu la micno yahay. marka laba lambaro waa maxay marka square root-ka oo ama 4 square waa 16 square root. okay waa 4 marka halkan waxaan gelinaynaa 4 ayaan gelinaynaa dhankan intana waxaan gelinaynaa 4 marka saas u gelisid 4 iyo 4 bal hadda u fiirso labadan qaybtan waa difference of squares way sababtoo ah bal u fiirso qaybtan waa difference of squares sababtoo ah difference of squares waxaa la yiraahdaa laba lambar oo square ah oo ay u dhaxayso calaamad ka jar ah. hadda x square waa square 4na waa square sababtoo ah 4 waxay la micno tahay 2 lagu dhuftay 2 ayay la micno tahay 2 ku dhufo waa 4 marka 4 square root-kiisa waa lambar 2 marka waan sii wadaynaa completely factoring ayaan ka dhigaynaa marka qaybtan waan sii factor gareynaynaa qaybtan marka maxay la micno tahay marka ugu horeysa anagoo raacayna tusaalaheeni x baan dhiganaynaa haddana waxaan dhiganaynaa x ayaan dhiganaynaa x lagu daray iyo x laga jaray x. okay marka sidaas tahay hadda bal u fiirso difference of squares way 4 marka x iyo x waan dhiganay waa maxay laba lambar oo isku mid marka la isku dhufto noqda lambar 4 labada lambar oo isku mid marka la isku dhufto noqda lambar 4 waa lambar 2 marka labo baan qoranay qaybtan waa soo qaadanaysaa qaybtan difference of squares ma sababtoo calaamadii ku darteed ay dhexdooda u dhaxaysa ayadana waa soo qaadanaysaa halkaas ayaad ku dhiganaysaa marka this way waxaa la sii yiraahdaa complete factoring ayaa la yiraahdaa marka buugaaga hadduu kugu yiraahdo factor this complete laatu kugu yiraahdo factor garee si si complete u factor garee hadda lagu yiraahdo saas ba subinaysa marka hadda final answer keeni waa mitaan oo haddii afka laga sheegay tahay laakiin indhaha dhaqso la arkayo parenthesis x square laga jaray 4 parenthesis x plus 2 parenthesis x laga jaray 2 parenthesis waa dheer tahay sheegiteeda marka waa ka jawaabteeni final jawaabteeni waa mid ka tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan subinaynaa tusaale kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan 1/16 b oo la exponent 8 laga jaray 81 marka ugu horeysa anaga formuladan raacayna waxaan dhiganaynaa okay may okay waa maxay lambarka oo markii laba lambar oo isku mid marka la isku dhufto noqda lambar 1 waa 1 lagu dhuftay 1 way waa maxay laba lambar oo marka la isku dhufto noqda lambar 16 waa maxay laba lambar oo isku mid marka la isku dhufto noqda 16 waa 4 lagu dhuftay 4 way marka waxaan subinaynaa waxaan dhiganaynaa 1/4 ayaan dhiganaynaa 4 lagu 4 haddana waxaan dhiganaynaa exponentigana 2 u qaybinaysa 8 2 u qaybi waa 4 way marka 4 baad dhiganaysaa lambar 4 haddana lagu daray haddana 1/4 b oo la exponenti 4 laga jaray baa dhiganaysaa waa maxay laba lambar waa 9 waxa soo naqana 9 lagu dhuftay waa 8 hadda kan bal u fiirso difference of squares ayuu sii yahay marka sii wadaynaa waxaan wadaynaa 1/2 b square haddana laga jaray maxaa la jiray 9 saas dhahaysa sida no 3 way 3 haddana b oo 2 leh 2 3 boos ma banahan min dhawaxan okay si wadi kartaa kan waxa ka dhigi kartaa 1 2 b haddana maxaa la jiray 3 haddana 1 2 b
lagu daray 3 kanna halkan ba soo qaadanaysaa inta ku dhiganaysaa 1/4 saas baa wada marka kana soo qaadanay hadda kan waa difference of squares marka waa sii factor garaynay saas ayuu noqday haddana kan wuxuu noqday difference of squares haddana sii factor garaynay oo midkan plus waa inaan laga dhigo kan baa sii factor garaynay saas buu noqday waa 10 meeshaas